ilaa culimadii ay soo istaageen leeyihiin ninku hadduu gabadhiisa maaragtay uu de wax ka qaato kufsi maaha muxuu ahaa gabadhaada haddaad wax ka qaado xoog kaga qaado ma waxaad aaminsan tahay ninku hadduu gabadhiisa wax ka qaato inay kufsi waa kufsi diinteenu waxay ina tiri marka aad gabadhaada marnaba qof bini aadan jirkiisa inaad jirkiisa miyuu leeyahay xaas adaan ku weydiinaya xaaskaaga maadaa leh miyaad leedahay qaar baa soo maago igu yiraahdaa rufiyaanad baa tahay wadamada reer galbeedka u heelisa wax wanaagsan baad ka sheegtaa wada wanaagga ilaahay miyuu ogol yahay in la qariyo wadamada reer galbeedka kale waxay qoreen Valentine's kale for example dadka aad rajaado maalintii jacaylka laga taataabtay shukulkii gaalada anaga noola wax ma idin sheegaa mid kala jirto markay 100 dumar dhashaan ba adduunka 107 nin baa dhasha yalla idinku sheekayn nimanka ku yar adduunka wax ka jira ma jirto iyaga inaga badan ama isku isbaynu u dhimanaa haday dagaal ku dhintaan inaguna umusheen ku dhimanaa haday iyagu maaragtay dhibaatooyin kale u dhintaan inaguba dayaca iyo kursiga iyo dhibaatooyinka kale inuu u dhimanaa ma garatay wax ka jira ma jirto kii lagu qoray meel buu kugu sugayaa mid kale aan awalba farxad ku haysan mid baas ha ugu dultagino ha ku xidhiidhiyan intii yarayda ya han lahow saasan kaga tagay waxaan arkay dhowr qof oo fiidiyo soo galiyay oo ay ka hadlayaan dhowr inan oo leh Ethiopian-kan nacabnahay Ethiopian-kii baa wadankayaga yimi Ethiopian-ka waa cadowgayaga koobaad waana lagu soo koriyay inay cadowgayaga yihiin iyaguna waa og yihiin inaan cadowgooda nahay kelmado aad u culculus baan halka ka arkay oo aad u qalafsan waxaan ka fikiray tolo inamadani weligood qof Ethiopian wax mahmaha jirtay oran jirtay qofka jid ma la martay jidinsa ma la cuntay aniguba markaan yaraa nacaybka iyo de waxaasi way igu jireen laakiin Mareykan imaanshaheedii wax badan buu noloshayda ka bedelayo waxyaabo badan oo aan caadi u arkay ayaan ogaaday inay khalad ahaayeen waxaan ogaaday dadka Ethiopian-ka ahayn dad inaga ina la midow yihiin oo masaakiin oo iyagu dagaal iyo dhibaato rabine lagu khasbayay. My name is Fatia Absia. They say home is where the heart is and my heart is in the US. I feel like an American. I am an American. I call myself and consider myself an American. Middle Easterns thing, I'm from the Middle East. Americans thing, I am American, you know, African American. I pretty much fit in everywhere.